markale soo dhawaada asxaabta qiimaha badan waa cashirkeeni 12aad barnaamijkeeni quickbook qaybtii labaad ee working with items waxaanu cashirkii ka horeeyay kaga soo hadalnay qaabka loo diiwaan geliyo waxyaabaha aad ka ganacsanayso ama alaabta aad ka ganacsanayso. haddaba maanta waxaan eegi doonaa sida items wax looga bedelo, edit loogu sameeyo, delete loogu sameeyo, make inactive iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan. haddaba waxaan tagi doonaa lists menu, kadib waxaan leenahay item list. halkan waxaan nooga soo bixi doonaa itemska markaa inooga diiwaan gashan. marka aan rabno inaan itemskiina wax ka bedelno, laba qaab baan uga bedeli karnaa. in aan itemka doorano, right click siino, kadibna waxaan rabno aan ku samayno. ima inaan itemka doorano, kadibna halkan item ay ku taalla aan dalbano, kadibna markaa waxaan rabno aynu ka bedelno. tusaale ahaan waxaan samayn karnaa waxaa loo yaqaano edit item. kadib item waxaa ku samayn kartaa bedelid ama update baa ku samayn kartaa. iminka principal keenoo yaalaa, waxaan rabnaa ayaan ku samayn karnaa sub item baan samayn karnaa oo item kana hoos geyn karnaa. description kiisa waxa ayaynu ka bedelin karnaa oo tusaale ahaan kale waxaanu ku dari karnaa waxa loo yaqaano waxa aynu u baahanahay. okay, edit baan ku samayn karnaa. lacagta ama cost inta inagu fadhiyo waxaan ka bedeli karnaa. sales price waxaan ka bedeli karnaa. dhammaantii description kiisa waxaan ka bedeli karnaa. laakiin waxa aynan wax ka bedelin karin waxa weeye quantity on hand oo kale. isaga markaa dib baynu ka eegi doonaa insha Allah. meel kale ayaynu ka bedeli doonaa insha Allah marka aynu itemskeena soo iibsano. tusaale ahaan item kasta aynu inta qiimaha inoogu jirta aynu aragno baynu wax ka bedeli doonaa insha Allah hadii la ka dhigo. marka iminka tusaale ahaan waxaan ka bedeli doonaa description kiisa waxaan bedelnay. halkan waxa aan rabno ayaan ku daraynaa, kadibna waxaan leenahay okay. markaan eegno itemkii automatically ayuu isu bedelay oo magaca waan ku darnay. description kiina already waa kan, magaciina wax ayaan ka bedelnay. marka qaabka ugu fudud ee itemka aad wax uga bedeli kartid. markaan rabno itemka waa dooranaynaa, waxaan leenahay halkan ayaan farta gelinaynaa, kadibna waxaan leenahay delete item, kadibna automatically ayuu u baxaya. waxaan kaloo ku samayn karnaa make inactive. su'aalaha kale waxaan dooran doonaa itemkan, kadibna halkan ayaan farta gelin doonaa, kadibna waxaan leenahay make inactive, make item inactive, kadibna automatically dad eegtaan wuu baxay. tusaale ahaan waxaan samayn karnaa show inactive items. waxaan tustaa itemska inactive-ka waxaa ka mid ah kanoo kale. ka right click baan leenahay, kadibna waxaan leenahay make item active, kadibna automatically itemkii haddaan soo cancelno waxaan teginaa list, kadibna waxaan leenahay item list. marka iminka automatically ayuu usoo galay waxa loo yaqaano itemkii. waxyaabaha kale iminka waxaa ka mid ah halkan inaad ku qortid waxa aad u baahan tahay itemka aad rabtid. tusaale kale waxaan ku qoranaa halkan waxa loo yaqaano price baan ku qoranaa, kadibna waxaan leenahay search, kadibna automatically ayuu inagu saaray. waxyaabaha kale muhiimka waxaa ka mid ah halkan itemka maxaad ku raadinaysaa. office fiilashiisa oo dhan, magaciisa, haddii aad gelisay item numberka, haddii aad gelisay description kiisa, haddii aad gelisay prefender funderka aad kasoo ibsatay, waxaas oo dhan manufacturer numberkii ayaad gelin. marka haddaad rabtid inaad itemka number ku raadisid halkan ayaad farta gelinaysaa, hadhow toban number baa ku raadinaysaa. tusaale ahaan haddii aad rabtid inaad item ku raadiso description kiisa ama description sales kiisa oo kale, tusaale ahaan halkan ayaad gelinaysaa. marka dabcan aad u baahan tahay office baa ka dhiganaysaa si maxay aad waxa aad rabtid. tusaale haddaad ku qortid nameka, haddaad ku qortid description, whatever wax kasta ku qortid normally wuu kugu soo qorto automatically. marka waa qaabka ugu fudud ee aad itemkaaga aad wax uga bedeli karto ama aad wax ugu dari karto sida caadiga ah. waxyaabaha kale samayn karto waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano inaad samayso waxa loo yaqaano resort oo kale. tusaale kale ama aad samayso waxa loo yaqaano hierarchical views, qaabka kala sareeyaan oo kale in lagu tuso dabcan sida caadiga. marka waa itemskaaga ayaad waxa ku sameynaysaa modification, waxba ka bedelaysaa, waxna waa ku darsaa. casharadan ku horeeyay fadlan ku laabo channelkeena, soo daawo casharada iyo qaabka ay isugu xiran yihiin. insha Allah waxaan rajayn doonaa in aad wax badan ka fahmi doonto intaan casharka ku xukumi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.